السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوّد channelka Higsa Show إن شاء الله maanta halkan waxaan ku soo qaadan doonaa cashar yar oo kooban oo aad ku baran doonto sida loo edit gareeyo heesaha insha Allah hadaba barnaamijkan isticmaali doona waxa la yiraahdaa Final Cut Pro waxa weeye waa barnaamij ay sameysay shirkadda weyn ee Apple waana barnaamij wuxuu ku jira barnaamijyada ugu awoodda badan leh ee wax lagu edit gareeyo marka hore sidan ayuu u egyahay Final Cut Pro marka aad furto sidan ayuu software-ku u egyahay sida loo dhisay software-ku waa si aad u qurux badan طبعا aad ayuu simple u yahay video editing test one okay mid hore save gareysna طبعا halkan waxba kama bedelayo halkan video format-ku waxa weeyaan wixii aad rabto ayaad ka dhigan kartaa dad 4K hadaad rabto waad ka dhigi kartaa laakiin anigu waxaan ku deenayaa 1080p gaas ayaan ku deenayaa halkan frames-ka weeyaan waxa la leeyahay waxa jeceshahay baad ka dhigan kartaa laakiin anu inta badan waxaan isticmaalaa maadaama aan rabo in video-gigu uu ekaado cinematic video waxaan ugu fiican oo aan isticmaalaa 24 per second ayaa isticmaalaa inta ugu badan inta waxba kama bedelano kadibna ayaad ku dhufanaysaa okay halkan hoose hadaba waxba iska bedelay oo imika weyn soo qaadan karnaa kadib falaadha hoos u jeeda ayaad ku dhufanaysaa waa halkii aad import aad ka soo qaadanaysay media-haaga waxaad u baahan tahay hal mar ayaan ku dhuftay طبعا aniga project-yadu waxay wada yeelaan computer-ka inta ugu badan waxba kuma save gareeyo inkastoo 1 terabyte uu yahay hadana inta badan waxba kuma save gareeyo okay halkan waxaan ka soo qaadanayaa external drive-ki hard drive-ki ayay igu jiraan wax walba halkan ayaan ka soo qaadanayaa marka dabcan anigu waxa weeye waxa fiican mar walba haddii aad isticmaalayso hard drive inay waxaagu ay nidaamsanaadaan tusaale ahaan oo kale waa inaad waxaagu dhan ku wada nidaamsan yihiin waana ku fududaanaysa markaad rabto inaad shay soo qaadato okay mar raba inaan hadalka badiyo aniga halkan igu jira laba video baan ku baran doonaa insha Allah labadan videona dabcan YouTube-ka ayaan ka soo qaaday waxaan rajaynayaa walaalkii video-gan xaqiisa lahaa inaanu insha Allah inagu qaban maadaama inagu aan 30 second oo kaliya ka soo qaadanayno si aan ugu faa'iideyno dadka kale una bartaan sida heesaha loo edit gareeyo mararka qaar waxaa jira qof adarka soo inuu juhdi badan uu ku bixiyo inuu duubo video ama heesa noqoto ama waxay doonto ha noqoto laakiin se haddana video-gii aan editing-kaad ka muuqato macnaha waxooga darxuma oo video-gii sidiisiyo qaraxa la soo geliyay dabcan adduunka maanta waxyaabaha lagu kala hormaray waxa weeyaan haddii video la duubayo waa qaybta editing-ka qof walba kamarada uu soo qabsan karaa uu duubi karaa shay laakiin se shayga lagu kala hormaray waxa weeye editing-ka dabcan qof walna waxa weeyaan isaga ayaa isbari karaa wax soo si adag maaha dabcan iskuul inaad u tagtaa waad baawiye inaad iskuul tagtaaba muhiimba maaha okay waa laba mid tan hore ayaan u sameeyay oo waxa weeyaan waa before iyo after waxa weeyaan waa 30 second insha Allah idin waan daawan doonaa tanina waa video-ga dhameystiran marka labadoodaba highlight ayaan saarayaa kadibna import ayaan leeyahay okay bartan ayuu soo dhigay oo aragtaa mid waatan oo waxa weeyaan 30 second midna waatan oo 5 daqiiqo oo video-ga dhameystirnaa okay marka hore kan ayaan soo qaadaya drag and drop ayaan sameynaya mouse-ka adigoo haya ayaad soo jiidaysaa kadibna xagga hoose timeline-ka ayaad soo saaraysaa okay hadaba aynu yaro dhageysano insha Allah play سوجتي دغداي وحان كوغو سيكو سانيادو دغنتاي سابليدا بيركي سيداي اكسونو معاني اكسونو سيداي اكسونو معاني اكسونو سيداي اكسونو معاني اكسونو waxaan filayaa ama waxaan rajeynayaa inaad aragteen labada farqi ee u dhaxeeya markii hore iyo markii dambe aan macnaha editing-ka ku sameeyay okay marka hore sidan ayuu ahaa oo dabcan waa video-ga waa tabti kamarada lagaga soo duubay ayaa loo soo geliyay dabcan waxaan filayaa qofka ismani waa video-yada u kala duubay ayuunbuu isku wada dhijiyay khaladaadkii yaraan oo ka dhex saaray laakiin video-giisa wax color ah looma sameynin ama color correction lama sameyn wax editing ah oo saa si weyn lama saarin marka imika haddii aad eegto badanaa kamaradu muxuu hayday qofku duubay kamaradu way kala duwan yihiin tusaale ahaan kale Sony kamaradaha ay sameysaa waxay u sameysaa macnaha qofka cawlan ay ka dhigtaa laakiin marka color-ka muxuu hayday color correction lagu sameeyo waxa ka soo baxa video aad iyo aad quality-giisu fiican yahay
bal markaa insha allah wan yaro wadi doonaa. markii hore sidan ayuu ahaa, halka ay kasoo galaysa line-ku ayaa ka dambe ayuu ka bilaabmayaa. tusaale ahaan oo kale waad aragtaa inantu waxa weeyaan fanaanada madow ay xidhan tahay. qaybtan waa qaybtan editinga ku sameeyay, qaybtanna waa qaybtii hore ee originalka ahayd. okay, farqiga u dhexeeya waxay la tahay inaad arkayso oo qaybtan waa qayb madow ah, qaybtan waxaad moodaa madow waa cadaan macnaha uu ku yara jiro. dabcanna waa iftiinka lagu shiday iyo waxa weeyaan. okay, waad aragtaa subax xoogaa hanu celiyo gadaal hanu celiyo. waad aragtaa wejiga laftarkiisa, faraha waxoogaa imaka kalarka casaanka ama guduudka ayaan waxoogaa ku daray. halkanina cadaan aad moodo inuu jaro cawlan saaran weeyaan. okay, han wada dhaafino color backgroundka dambe isaga waxa weeyaan yara waxaad moodaa sibiri laakiinse xaggan markii dambe weight ayuu noqday oo waxa fiican inaan indhaha soo qaban oonu backgroundku si toos u soo muuqan. waxa weeyaan halkan weight ayaan ka dhignay insha Allah. isagana waad aragtaa dabcan labadiisa gacmood haddii aad isku dhigto ama jacket-kan uu xiran yahay iyo qaybtan haddaad isku eegto iyada laftirkeeda muxuu hayday kalarka waad dareemi kartaa. midda kale ugu muhiimsan waxay tahay la dhahaban jeclahay letterbox. adu waxa weeyaan waa labadan line ee ka hore iyo ka hoose insha Allah. laakiin waan xaggan aan idinku soo qori doonaa tegiska. okay, labadan line ee cad waxa weeye videoga inta ugu badan way asturaan. haddii videogu uu dhaqdhaqaaq badan sameynayo kale way asturaan. oo haddii tusaale ahaan oo kale imanka eeg haddaan waxoogaa in yar aan gadaal u celiyo, waad aragtaa inanta lugaheedu way isdul saaran yihiin, isagana halkan jilbihiisa iyo surwaalkiisa waa la arkaa inta hore. dabcan wax ma sameynaysa laakiin waxoogaa muuqaalkay soo yaro koobaysa oo in yaro muhiima ay kasoo saarsaa. eeg markuu soo galay dabcan waad aragtaa isaga jilbihiisii lugihiisa way qarsoomeen, inantana lugaheedu way qarsoomeen. halkan iyada laftirkeeda kursiga inta hoose way qarsoomaysaa. kadibna sidan ay noqotaa. kadib inta keliya aan ku daray waxa weeyaan videoga wax kale kama bedelin, kalarka u maasaxay intana waan ku daray. okay, haddaba imanka waad aragtaa insha Allah. haddaba intaas weeyaan intaan idin bari doono ama aan idin faa'iideyn doono oo aan muxuu hayday waxaan aqaano, waxaan jeclahay qof walba inaan la wadaago. okay, kadib waxaa intaa weeyaan ayaan jeclahay. waxaan filayaa inaad fahanteen ama aad khibrad ka haysataan waxaan halkan ku baran doonaa insha Allah. okay, haddaba kan isaga waxa weeyaan delete ayaan siinayaa. waxaan soo qaadayaa kii originalka ahaa, waa kan isaga laftirkiisa drag and drop ayaan ku sameynayaa. waan soo qaadayaa. dabcan uma baahni 5 daqiiqo oo dhan waqtiga ayaan igaga lumay. waxaan soo qaadanayaa inta keliya aan u baahanahay. okay, intan oo keliya ayaan u baahanahay. okay, arrowga keyboardka haddii aad rabto barta ay videoga hore iyo videoga dambe, videoga horena uu ku dhammaanayo ka dambena uu ka bilaabay inaad hesho, waxa weeyaan waa inaad arrowga riixdo left and right. imanka kan okay, videoga hore halkaasuu ku eegyahay, ka dambe halkaasuu ka bilaabmaya. okay, haddaba keyboardka waxa weeyaan shortcuts inaad isticmaasho. haddii aad isticmaasho macnaha degdeg ayaad ku sameynaysaa, ayaad muxuu haydeen editinga ku sameynaysaa. laakiin haddii aad mar walba intaad mouse-ka timaado halkan waad ku dhufan kartaa, kadibna maqaska ama makiinada waad dooran kartaa. laakiin haddii aad rabto markiiba inaad doorato B ayaad ku dhufanaysaa oo keyboardka ah, kadibna line-ka dulgeynaysaa, click ayaad sameynaysaa, cut bay noqotay. haddii aad rabto inaad fully calaamadda waad aragtaan bay la tahay, waxa weeyaan waa makiinadii wax ku jirnay ama sakiintii. kadibna haddii aan A riixo oo keyboardka ah waxay weeyaan fallaadhi ama ayuu soo noqonaya mar labaad. waan delete gareeyay intaa hore. okay, intii hore waan iska jaray. halkanna waxaan rabaa ilaa meelaha iyadana inaan jaro. okay, intaasaan rabaa. arrowga dibur celinayaa. okay, halkaasuu ku dhammaanay ayuu ka bilaabmaya videogani ay barafka taagayiin. kanna halkan ayuu ku dhammaanaya. okay, B ayaan riixayaa, kadibna halkaasaad line-ka dulgeynaysaa, click ayaad sameynaysaa, kadibna A baan riixayaa, kadibna click ayaan sameeyayo oo waan tuuray intaa. okay, haddaba inagu intaan u baahanay waa intan yar oo keliyaata insha Allah intaan ku baran doono. kadib intani waxa weeyaan ilaa 30 second meelaha. okay, dabcan waa 32 second. waxa weeyaan waa good aad waxa weeyaan ma badna, waqti badan inaga ma qaadanayso insha Allah. okay, haddaba start ayaan riixayaa si aan u soo dhaweysto intan maadaama yar tahay, kadibna A, kadibna waatan. okay, waatan haddaba intii muhiimadda ahayd intaan rabay. okay, haddaba markaad halkan tagto qaybtan hoose halka ugu sarreysa waa halkan waxa weeyaan transitionkii
iyo effectska isticmaalisa inagu dabcan effectska isticmaali doonaa halkan ayaad ka dooranaysaa colors ayaad ka dooranaysaa kadibna drag and drop ayaad ku sameynaysaa waad ku sii daynaysaa waxaan idiga raali gelinayaa insha Allah casharada dambe waxaan isku day doonaa inaan ka wada dhigo dhammaan muxuu haydayaan English dabcan aniga dhammaan waxa weeyaan German marka insha Allah waan idin sharaxi doonaa wixii muxuu hayday fahmoodaan insha Allah wadi soo wadiin doontaan xagga hoose comment-iga taga marka hore halkan integinaa kadibna kan hore ayaad waxoo eegaysaa waad aragtaa colorka aad ayuu isku bedelay dabcan waad aragtaa ma wada rabo inuu wax yar isbedelo in yar ayaad hoos u soo dhigaysaa kanna haddaan idin tuso harka macnaha waad arkaysaa wuxuu noqonayaa nooc kale isagana in yar ayaan hoos u yara dhigayaa kan ayuu noqday isagana kor ayaan in yar u qaadayaa kolba qofku horta waxani waxa weeyaan waa wadawaaban adigu dareento sida uu colorku noqonayo macnaha qasab maaha inaad mar walba aad ka dhigto 100% inaad ka dhigto oo halka geesa qasab maaha kolba waa inaad ku eegto oo geeso halka uu colorku ku soo baxay halkan bluega iga batay marka xooga in yar ayaan hoos u soo celinayaan gadaal baan soo celiyay okay kana waan ku darasaa kadibna kama aragtaa noocaas uu noqonaya wada huruud ama jaalle haddaan kor u qaado noocaas uu noqon laakiin isagana in yar ayaan kor okay hoos ayaan soo yardhigay in yar dabcan okay qaybtan aniga saasi NFA gu tahay kadibna halkan ayaan teginaa kadib in yar ayaan rabaa inaan iftiinka aan ku yara daro okay waa perfect halkaasi kana in yar baan rabaa waa colorka dambe okay waxoogaa baan isna yar baan hoos soo yardhigay ma rabo inuu colorka oo dhan wada casaan ama huruud waxaana guduudiga wada noqdo in yar baan kana kor u qaadaya okay dabcan kana xoogaa baan hoos soo yardhigay okay qaybtanaasna waxaan sameynayaa iftiinka waad aragtaa waa iftiinkii weyn lightingka lagu furayay si uu soo baxo isaguna ay dharkii waxaan u soo baxan dabcan waad aragtaa haddaan sii hoos u dhigana madow ayuu saayid u noqonayaa haddaan arka markiiba caweef noqonaya isna hoos ayaan in yar u dhigayaa si uu colorka dharkooda u soo baxo wejigooduna aanu colorkiis kaga bedelin macnaa aanu u noqonin cadaan aad moodo inuu muxuu haydayaa wax ku jiro okay kanna waxaan sameynayaa in yar baan kor u qaadayaa okay isna hoos ayaan soo dhigay imanka waxaan rajeynayaa okay waa perfect weeyaan waa sax sidii la rabay weeyaan imanka okay haddaba midda sameynaya iyaduna waxa weeyaan labadii boqos ee xagga sare iyo xagga hoose marna cadaan bad ka dhigi kartaa marna madow kulba saad jeceshahay ayaan raadinayaa iyaduna halkan ayay ku jirtaa just waxaan ku qorayaa letterbox okay soo qabanaysaa isagana drag and drop ayaad ku sameynaysaa okay waad aragtaa waxoogaa halkana ayuu kasoo galay inaad aragto dabcan ayay la tahay kan waan iska soo xidhaya isaga ma baahni okay waa kan letterboxki isaga haddaba halkan ayaad muxuu haydayaa ayaad size-kaad rabto aad ka dhiganaysaa haddii aad rabto dadku kolba qof waxuu jecel yahay laakiin waxa fiican mar walba inaad dhammaystirto dadka qaar ba waxaad arkaysaa iyagoo intaa yaroo keliya ka dhigaya kolba adiga sidii ku cajiibsan weeyaan qof walba wax weyn ikhtiyaarka isaga iskale laakiin ana waxaan jecelahay mar walba inaan buuxiyo 10 aan halkan ka dhigo sababtoo ah halkan tan rabay inaan cagaha inta hoose qariyo intan xagga sarena wax ka soo jaro ayay ahayd okay haddaba muxuu hayday we are done waxaan filayaa inaan xoogaa yar idin soo koobay insha Allah oo aan wax badan idiga qaadan fiidowgii haddii aan imanka isku dayo inaan kii hore iyo kii dambe idiin soo saaro sawjadii deqday waxaan kugu siko saaniyaad u degtay sablayda birkii sidaay ogsoono macani ogsoono sidaay ogsoono macani ogsoono ogsoono macani ogsoono insha Allah waxaan rajeynayaa muxuu haydayaan inaad ka faa'iideysan doontaan oo waxa weeyaan wixii su'aalaha insha Allah waxaad soo dhigi doontaan xagga hoose commentiga igu soo qora
heestana waxaa idiin dhigi doonaa xagga descriptionka qofkii ka helay raba inuu dhegeysto xaggaas insha allah idiin soo dhigi doonaa haddii aad nagu soo cusub tahay fadlan ha ilaabin inaad subscribe samayso lana wadaagto dhammaan asxaabtaada waanad ku mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh